معقول أرنتاس could be هاي وحو كشيء شرعي أهان صفة شرعي أهان lawyer كدايمر إنه ويديان ما ليناي أرنتاس ورقة ما هو في يكذب نوشة بس ورقده يكذب بس لكن دي على كل قفنا ورنت وساقاتوي هاي وعليكم السلام محمد كسعو ما سنتين aad baan idin salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum qolada groupka haysana aad iyo aad baa mahadsantihiin ilaahay khayr ha idiga siiyo waa camal aad u wanaagsan oo waqtigii loo baahnaa niyo arrinka waraaqaha rabay inaan ka yara hadlo annaga Sindiyeegan joognaa waraaqahaas niyo marka dhibaatooyinku yimaadaan waxyaalo badan baa is hoos kala saddex ka hor naay cabdna baa meesha aaga Soomaalida Sindiyeega timi waraaqay soo daabacday waraaqaha waxay ku soo daabacday 10,000 oo agenti ah baa magaalada imanaya 15 bisha marka waa bisha 14keedii waxayna taageergaraysanayaan Soomaalida meesha joogtaana dadka derbiga ka soo booday dad 10 qof ma gaadhaanba dadku waa ku yar yihiin meesha Sindiyeega waa ogtihiin okay naagta afkay soo duubatay waraaqihii bay dadka u qaybisay waraaqihii markii dadka u qaybisay Soomaalidana waa taqaanaa waxba la iskama hubiyo dee waa la isku dirdiray dadkii guriyihii intii 10 qof meesha joogtay ama dhowr 10 qof joogay oo bilaa sharciga guriyihii way ka soo bixi waayeen kuwii kale dadkan iyagoo green card haysta ama passport haysta shuruucdooda ma yaqaanaan qayb kamid ah waa iska baqeen marka arrinkii waxa loo gudbiyay nin boolis oo Soomaali ah oo meesha jooga nin dhalinyaro ah arrinkii marka waxa la soo ogaaday dad cunsuriyeen waxa soo qoreen marka waraaqaha cidii doontaa inta soo daabacdo bay guri ku soo dhajin kartaa ama buildingka ku soo dhajiso ama sida naagta ana dhalinyarada ku samaysay oo Sindiyeego dadka ay u qaybisay waxa weeye u qaybiso marka arrinka waraaqaha waxa loogu talagalay cabsi gelin macnaha in bulshada laga fiisay faa'iideysta xaaladdan jirta oo iyaga ruuxbi lagu rido cabsi lagu rido ma garat aad iyo aad marka arrinkaas anaga Sindiyeego laba casho dadkii banaanka uma soo bixin aakhirkii markii la baaray hawshii waxa la yiri waxba kama jiraan goormay ahaydna bishan January miya ama bisha hore waa maya waa bisha 14keeda bay waraaqaha qaybisay maalinka arbacada I think arbacadii bay ahayd arbacadii markii qaybisay community waa isgaarsiiyeen dhalinyaradii masaajidkii akhyaartii waxa la yiri dhalinyaro guriyina iska jooga waraaqihii waa la sii share gareeyay waraaqda waa macnaha waa waraaq ay fooda iyada soo daabacday waxay ku soo qortay sheeg maxaan ku dhahay 10,000 oo agenti ah baa waxay imanayaan magaalada Sindiyeego bari shaqo ka bilaabaya and they will target Somali community waxayna target garaysanayaan Soomaalida community Soomaalida target garaysanayaan alert bay ku qortay ma fahanti kabacdina inta afka soo duubatay bay meesha Soomaalidu ku shaahayso bay odayaashii joogay oo Soomaalida ahaa tiri iga qabta waraaqahan wow adiyo ma mid ogaado waxaan horta hadda meesha dhibtu ka jirto waa ugu badan waa Minneapolis Soomaalidana si guud waa dadka carabka ninkii wadanka ugu sareeyay ma hadda wax hoose iyo ninkii wadanka ugu sareeyay afku haya ama way joogaan nimanka Laatinka way qabtaan laakiin wax Soomaali ay dhib geysteen ma jirto maalinkaas aan ku sheegayo oo arbacada ah oo 14 bisha ah meel lagu lugeeyo beera jirta meesha nin Soomaali ku qabteen ma fahanti marka ninkii Soomaaliga ahaa green card buu haystay green card waxay dhaheen wadan goorma soo gashay su'aashaasi weydiiyeen 2016 buu yiri green cardna wuu haystay passport ma haysan bas waa iska soo daayeen soo kiisa Soomaaliya kaan laakiin way togaan Latinos way dhalinyarada building kan mal hebelan soo galina 23 bisha aan building kan soo galina ay dhaheen sharciyanna guri loo rabaa inay fasax u soo qaataan mooyee building inta fasax soo hesho guri walba fasax kuma aha dadka meesha building hadii ku taalo 200 guri hadii ku yaalaan ala guri waa inay u soo helaan mataqaana warrant ay ku soo galaan oo jaay soo qoray marka arintii qofkaasna ma xaqiijin karo waa lagu yiri waa la yiridi waa ku badatay annagana si kale noola ekaatay war Idris this what I think aniga kowde haye
أنا ورقة وحيلتها هي كسر لو قلت شيء أو قفك مع ماشي سيف كوها سيد بين لو قصو صار لا بناك ما قرأت أنت قولي يسحب سيل لو قليو I think that's what it is bro معقول أرنتاس could be. bro that's the because هداي السلام عليكم. هدي لو ويدي محو كشيغي يا هداي وحو كشيغي شرعي أهان صفة شرعي أهان لويرك دايمر إن لو ويديان ملايناي أرنتاس ورقدا ما هو يكتب نو بس شيء يكتب بس ورقده يكتب بس لكن دي على كل قف إنه ورم في سوقات وي هاي وعليكم السلام محمد كسعو. idris walaal ma hadli karaa adoo maanta ها كسعو أبو كويس. waa mahadsantihiin aad baan idin salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum qolada gruupka haysana aad iyo aad baa umahadsantihiin ilaahay khayr ha idiga siiyo waa camal aad u wanaagsan oo waktigii loo baahnaa niyo arrinkaa waraaqaha rabay inaan ka yara hadlo annaga sindiyeegaan joognaa waraaqahaas niyo marka dhibaatooyinku yimaadaan waxyaalo badan baa ishoos kala 3 casho ka hor naay cabdana baa meesha aaga soomaalida sindiyeega timi waraaqay soo daabacday waraaqaha waxay ku soo daabacday 10,000 oo ice agent ah baa magaalada imanaya 15 bisha marka waa bisha 14keedii waxayna taageergaraysanayaan Soomaalidan meesha joogtaana dadka derbiga ka soo booday dad 10 qof ma gaadhaanba dadku waa ku yar yihiin meesha sindiyeega waa ogtihiin okay naagta afkay soo duubatay waraaqihii bay dadka u qaybisay waraaqihii markay dadka u qaybisay Soomaalidana waa taqaanaa waxba la iskama hubiyo de waa la isku dirdiray dadkii guriyihii intii 10 qof meesha joogtay ama dhowr 10 qof joogay oo bilaa sharciga guriyihii way ka soo bixi waayeen kuwii kale dadkan iyagoo green card haysta ama de passport haysta de shuruucdooda ma yaqaanaan qayb kamid ah waa iska baqeen marka arrinkii waxa loo gudbiyay nin boolis oo Soomaali ah oo meesha jooga nin dhalinyaro ah arrinkii marka waxa la soo ogaaday dad cunsuriyeen waxa soo qoreen marka waraaqaha cidii doontaa inta soo daabacdo bay guri ku soo dhajin kartaa ama buildingka ku soo dhajiso ama sida naagtaana dhalinyarada ku samaysay oo sindiyeego dadka ay u qaybisay waxa weeye ha u qaybiso marka arrinka waraaqaha waxa loogu talagalay cabsi gelin macnaha in bulshada laga fiisay faa'iideysto xaaladdan jirta oo iyaga ruuxbi lagu rido iyo cabsi lagu rido ma garat aad iyo aad marka arrinkaas anaga sindiyeego 2 casho dadkii banaanka uma soo bixin aakhirkii markii la baaray hawshii waxa la yiri waxba kama jiraan ba goormay ahaydna bisha January miya ama bisha hore waa maya waa bisha 14keeda waraaqaha qaybisay maalinka arbacada I think arbacadii bay ahayd arbacadii markii qaybisay community waa isgaarsiiyeen dhalinyaradii masaajidkii akhyaartii waxa la yiri dhalinyaro guriyina iska jooga waraaqihii waa la sii share gareeyay waraaqda waa macnaha waa waraaq iPhone iyada soo daabacday waxay ku soo qortay isha maxaan ku dhahay 10,000 oo ice agent ah baa waxay imanayaan magaalada sindiyeego bari shaqo ka bilaabaya and they will target Somali community waxayna target garaysanayaan Soomaalida community Soomaalida target garaysanayaan alert bay ku qortay ma fahanti kabacdina inta afka soo duubatay bay meesha Soomaalidu ku shaahayso bay odayaashii joogay oo Soomaalida ahaa tiri iga qabta waraaqahan wow adiya ma garat odayaashii marka mid kale hal waraaq kaliya maaha boqolaal waraaqood imanayaan ma 10 qof Soomaalida hadday lacala yimaadaan 10,000 ice agent waa 20,000 ba inta hadda la og yahay ma 10,000 baa marka sindiyeega imanayo 10 qof Soomaali oo imanaya inay been tahay markii ugu horeysay la ogaan karaa lambarka ay sheegtay bal laakiin inaga dadkeena maxaad ku garanaysaa waxba iska hubiyaan Soomaha ruuxiga isku ridayaa Soomaha macnaha dad wax xubinaya manihin niyo maxamed waa ka dhaxgalay community Soomaalida ka maxamed waa ka dhaxgalay abo waxaan xoogtaa marka coordinate attack wax meel walba la soo isku soo talagalay boo Soomaalida dhan ugu faafinayo waqtiga ma garatay community kala loo qaybinayo waxa Minnesota ka socdo iyo waxa ka socdo I think waa same group of people baa subinayo maya de Facebook groupyada way leeyihiin moogtay waxaan ku sheekaystaan saanan sameeyay bal si oo kala carreen fiiriya marka way isaga daydaan copy and paste ku sameeyaan maya mid ogaado
waxaan horta dee hadda meesha dhibtu ka jirto waa ugu badan waa Minneapolis Soomaalidana si guud dee waa dadka carabka ninkii wadanka ugu sarreeyay dee maaha dee wax hoose iyo ninkii wadanka ugu sarreeyay afku haya ama way joogaan nimanka Laatiinka way qabtaan laakiin wax Soomaali ay dhigu geysteen ma jirto maalinkaas aan ku sheegayo oo arbacada ah oo 14 bisha ah meel lagu lugeeyo beera jirta meesha nin Soomaali ku qabteen ma fahanti marka ninkii Soomaaliga ahaa green card buu haystay green card waxay dhaheen wadan goorma soo gashay su'aasha weydiiyeen 2016 buu yiri green cardna wuu haystay passport ma haysan bas waa iska soo daayeen soo kiisa Soomaaliya kaan laakiin way togaan Latinos way qadalin aad afta waa xabti oo qodobkaas waa warqaha lagu socdo oo kalena waan ku darsayaa oo wiil aan dhageysanayay codkaaga yaro go'ayo my brother kaadi ama yimid wadani baa noo yimid wadani aan soo qabanay soo dhawow my brother wadani مسؤول thank you waa laga horeeyay madax sugaa dhimale ما شاء الله ما ninka waa cidka ka xun waa ragana waa sheekeen cabaar bay sheekeen okay waxaan rabaa ii sheeg warqadan iyo ilaaminayo waraaqaha oo shalay la doraata lagu qeybinayo ilaa Karmel iyo ii sheeg adna private ka kugu soo diray inaa arki kartaa rajaynaya waa warqada Friday loogu talagalay warqada maxaa loogu talagalay email waxaan private kan ku soo diray message kan ku soo diray so warqada waxa loogu talagalay 23 ka waxa loogu talagalay in qof walba oo ii sheegaan constitution observer ama dadkan u dooda constitution iyo dadka immigrant-ga inuu qof walba shaqadiisa iyo meel walba uusan tagin iskuul haduu jirin aad tagin shaqa cadaaladina sik wacdid loogu talagalay qof walba inaadan dhaqaaqin maalinta Friday-ga 23 ka sababtana waxa la rabaa xuduudda dadka kan u dagaalamay constitution-kan yani xuquuqdan immigrant-ga dadka kale in la ogaado awoodda ay leeyihiin okay marka ii sheeg waxa soo diyaariyay qolooyinkan constitution observers ka oo u dagaalama sharcigan inuu hagaago uu tooso oo qofna lagu xadgudbin marka warqada 23 ka la sheegay waa warqadaas oo ilaa Karmel lagu